إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوة العزاء weli waxaan ugu jirnaa muxaadaradii uga hadlaynay iftiiminta axkaamta ku saabsan soonka. muxaadarana waxay ka bilaaban doontaa insha Allah taala soonka qaybtiisii afraad ee ahayd as-siyaamul muharram, soonka la xarimay. waxa jira walaalayaal maalmo in la sooma ay mamnuuc tahay ama sharciga islaamka uu xarimay. maalmahaasi waxa kamid labada maalmood ee ciida waa marka ay dhamaato bisha Ramadaan, maalinta ciidu ku xigto oo loo yaqaan ciidul fidriga. sidoo kalena maalinta Arafo ay toban tahay oo ciidul adha loo yaqaan lama soomi karo. labadaas maalmood in la soomayo waa xaraan sida ahlu cilmiga ay ku ijmaaceen. abu ubayd mawla ibn azhar ayaa wuxuu leeyahay shahiidul ciid ma'a umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa radaah. ciidiyan waxaan kala qayb galay umar ibn al-khattab faqala wuxuu yiri umar haadani yawmani labadan maalmood nahaa rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam an siyamihima. labadan maalmood nabi maxamed wuxuu reebay in la soomo. yawmu fidrikum min siyamikum waa maalinta soonka aad furtaan, wal yawmul aakhir maalinta kalena taakuluna fihi min nusukikum qofkii udxiis wax ka cunayo, qofkii fidi bixinayo xajku wax ku waajibeenan fidiis oo wax ka cunayo. xadiisku waa sahih bukhari muslim ayaa soo saaray. sidoo kale abi saciid al-khudri ta'ala anhu ardaa wuxuu yiri nahaa nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ilaa wuxuu reebay عن صوم يوم الفطر والنحر. عيد الفطر عيد الأضحى صوم كود النبي الربيع عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح البخاري مسلم يا صاري. وحن بنانين وإن لا صوم أين بنانين أيام التشريق واسيس وفصين أفرت مذهبات. أيام التشريق أنا وحويان كو يطبنك لبا يطبنك يسدح يطبنك بشا ذي الحجة لو يقان أما بشا أن كان عرفه ويان. رسولك عليه الصلاة والسلام محيري أيام التشريق أيام أكل وشرب. مالمها أيام التشريق لو يقانو وكو إطبانك لو إطبانك سدح إطبانك بيش عرفويه ومالما وحلعونه أو وحلعبه. مركا مالمها سيدة إن وحلعونه أو لعبه لو تلقى المسلمين تأين وانذات فرعسا إن للصوم مبنانو من أنصح يصوم كودو ويان. مالما إن للصوم أي حاران تهي وحويان مالين تلو يقانا يوم الشكي ومالنت بيش شعبان أي صدن تهي بيش رمضان أن لا أركن أو ومالنت الإسلامي هي طلب مانت من وحي كمن تهي بيش رمضان أو كودي ذمية أما مانت ومالنت بيش شعبان أي صدن تهي يوم الشكل والو مقعابي سببته وحا السورة قال إني مالنتي صدنات أي شعبان أي تهي وعاكل السورة قال إني تهي مالنتي كواد بيش رمضان مالنتان إيدانا إن لصومه ما بنانو إذو لغا بقي إني رمضان نقطه أما إذو الددال للسمينية. يعني ضد بوحة لابا إني يهدان وحدعي كتمات إن رمضان نقطه بسادرت أنك ما إسك السومينا ومحل السوميسين لعل هدي رمضان نقطنا رمضان نو نقطي هدي رمضان نقوة سنة ما نكون صومنا بين نقونيسا تا إذا نمبنانا وسيء قبان جمهور العلماء ويان. عمر بن ياسر تعالى عنه ورضاه وحيري من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قفك الصوم مالين تدك الشكيسيين قفك السجا وحكو عاسي أبو القاسم والنبي محمد عليه الصلاة والسلام. حديثك صحيح أبي داود غيرك يا صوت صاري إمام الألباني حديثك صحيح وكدغي. ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه في فتح الباري وعليه هاي استدل به حديثك محل دليل على تحريم الصوم يوم الشك. ما انت يوم الشك صوم كذا إنه حرام يهي سببته الصحابي سير الأوجي هاي ومسك حديث أم رأي جيسة أرنتا سوق على كما ليه كره سببته أرنتا وأرن حكم كصابسن أو شيء بلا حرمية. marka hadii shay la xarimayo ama shay la banaynayo labada waxa la doonayaa in sharciga dil looga helo. hadii kale in qof warku uu yiri wax xaraan ku noqon maayaan xalaal ku noqon maayaan. marka maalinta yawm shaki in la soomo ma banaano illa qof hore caado u soo lahaan jiray oo sidii maalinta ku soo aadamayaan. mesela waxa dhici karto qofkan maalin uu soomi jiray maalin uu furo jiray ama waxa dhici karto maalinta isniinta ama khamiis inuu soomi jiray. maalinta isniinta uu soomi lahaa ama maalinta khamiis uu soomi lahaa waxa ku soo aadiyo mushaki inuu soomo banaan tahay maxaa yeelay dhaqankiisa hore baa la fiirinaya. rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasuumuhu sawman falyasumhu
ramadaanka ha kala hormarina maalin soonkeeda ama laba maalmood ilaa qof hore u soo soomi jiray mooyaane qofka asiga ha soonkaas ka sii wato xadiiska waxaa soo saaray Bukhari iyo Muslim Imam Nawawi rahmatullahi alayhi kitaabkiisa majmuuc wuxuu ku dhahay asoo ka hadlayo mushakkiye wuxuu yiri amma idha saamahu tadawucan qofka haduu tadawuc soomo fa in kana lahu sababun haduu sabab leeyahay bi an kana aadatuhu sooma dahri hore u soo soomi jiray buuri oo sooma yawmin ama caado wuxuu lahaan jiray inuu yani maalin sooma wa fidra yawmin maalin oo afuro oo sooma yawmin muayyan ama maalin muayyan buu soomi ka yawmin ithnayn maalin isniinta oo kala asoo marka sooman fasaadafahu maalintii iyo mushaki bay ku soo aaday buuri jaaza sawmuhu bila khilaafin bayna ashaabina asxaabu shaafici dhexdooda khilaaf kama jaboodo qofka inuu soonkiisu banaan yahay dalilkiisana waxa weeyaan xadiiskii Abu Hurairah ee dhahaya la taqaddamu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulun kana yasumu sawman falyasumhu ramadaanka maalin soonkeeda ama laba maalmood ha kala hormarina ilaa qof hore u soo soomi jiray waxa si wato soonka buuri hadii uu sabab le marka wax ka saaburi wa illam yakun lahu sababun fa sawmu haram haduu soonka sabab lahayn haram buu noqonaa buuri waa sida culimada ay qabaan waxa wanaagsan marka in la iska ilaaliyo soon aan waafaqsaneyn sunnada Nabiga Kaleey Salaatu Salaam oo noqon kara makruuh mid la kahdo oo noqon kara mid xaraan ah arimahan in la digtoonaad aad bay u fiican tahay walaalayaal qaybtii saddexaad ayaan u gudbaynaa ee muhadaran aan uga hadlaynay oo ah shuruudu siyaami soonka shuruuda uu leeyahay soonka wuxuu leeyahay shuruudan soo socota koow al-islaam qofku inuu muslim noqdo laba al-buluugh qofku waa inuu qaangaar yahay saddex al-aql qofku waa inuu garasho leeyahay afar al-iqaamatu qofku inuu muqiim yahay oo musaafir yahay shan الطهارة من الحيض والنفاس هوين حيضكي اما نفاسكي اي داهر كتاي لix waxa weeyaan القدرة على الصيام qofka soonka inuu karo todoba waxa weeyaan in niyadu qof inuu niyeyso inka soo niyada leeyahay ma shardi ba ma soo rugni culmo qaarna waxay yiraahdaan waa rugni culmo qaarna waxay yiraahdaan waa shardi shaafiicidu kale niyadu waxay yiraahdaan waa rugni oo cibaadada kamid ah culmo kale waxay yiraahdaan waa shardu min shuruud al-ibadati kamid ah todoba shardi hadii la helo soonku wuu waajibayaa waa inuu muslim yahay qofki qaangaarna yahay aqlina leeyahay muqiim yahay musaafir ahaan haween waa in dhaar ka tahay labadii dhiig xeydkii iyo maxaan ku raadaan nifaaski waa umashi iyo dhiigi caada aha iyo qofki inuu karo soonki iyo in la niyeysto shuruudda soonka uu ku waajibo walaal waxa kamid ah oo ku ansaxaya qofki inuu yahay qof muslim ah gaal soonku ma waajibayo mana ka ansaxay leeymaad xitaa soonku ma ku waajib markii gaalka la leeyahayna waa adduun markii la joogo laakiin aakhira markii la joogo soonka uu ka tagay iyo gaalnimada naftirkeedii waa loo ciqaabay waa loo haystaa hadii dhacdo qofkii gaalka inuu muslimo oo islaamada qaato bisha ramadaan dhexdeeda intuu islaamin ka hor maalmihii ka tagay inuu qaday waajib kuma ahan ee intuu marka uu taagan yahay buu soonka bilaabanay waa sida isku raacsiin madaahibta fiqiga ee afarta ah weeyaan waxa kale meesha soo hosgalay qofka haduu islaamada ka baxo ridooba ciidan billah ee uu islaamka ku soo laabto wixii ka tagay intuu gaalnimada ku jiray oo soon ahaa miyuu qadayna ma qadaynaya akthar ahli ilmi waxay dhahayaan inuu qaday waajib kuma ahan qofku markuu islaamka ka baxay gaalnimo xukunkeeda buu qaatay soomahan shardi uu ku waajibay soonku waxa weeyaan inuu qofku qaangaar yahay qofka duusan qaangaar ahayn mukallaf ma ahan nabi maxamed alayhi salaam wuxuu yiri rufi'a al-qalamu an thalatha 'ani an-na'imi hatta yastayqid wa 'ani as-sabiy hatta yablugh wa 'ani al-majnun hatta ya'qil saddex qofood qalinka waa laga rafciyay macnaha mukallaf ma aha wax ku waajiba ma jiro midka koowaad waxa weeyaan waa qof hurdayo ilaa uu ka soo toosay qof hurdayo wuxuu sheegay loo qaadan maayo haduu qofku hurdayo ira xaaskii waan furay la dhihi ma marka xaaska waa ka furantay ama waxa sameeyay dhihi maayo haduu wax haleeyo oo wixii cayn muuqatan ay tahayna waxa qasab ah marka caynta in la xaliyo oo macnaha xal loo helo wax buu jibin karaa Soomaa qofka soo hurdayo marka dambigi baan loo haysanina laakiin caynta waa loo haystaa waxa kale qalinka laga rafciyo buu nabiga oo laba ku ah ani sabiy hatta yablugh anugu yara ilaa uu ka qaangaarayo anugu yar ilaa uu ka qaangaaray asigana yani maaragtay yani qalinka waa laga rafciyay saddex waxa ku ah waa anil majnuun hatta yaqil qofka waalan ilaa wax ka garanaya shuruudda uu soonku ansaxay kamid tahay anugu yar oo mumayyiska ah ee kala garanaya waxa fiican in waxan fiicneen oo nijaasada wax kala saari karo oo aan qaangaarka ahayn waa la fiirinaya haduu soonka awoodo oo dibna u geysanaynin soon baa la leeyahay qofkii waalidkiis ama qofkii mas'uulidiisa hay waxa laga rabaa inuu faro inuu sooma soo soonka uu tababarto oo dhaqan ugu dhigto haday dhacdo anugi yara inuu qaan gaara bisha ramadaan gudaheeda culmadeena ridwaana calayhim si aad oo cajiib badan ay masaa'isha fiqhi u daraasayaan
waxa dhici qofka markuu dhashay laga soo xisaabo ilaa maalintaas oo la joogo markii bisha Ramadaan la gaaro dhaxdeeda qofka inuu ku qaan gaaro marka haday dhacdo canugi yara bisha Ramadaan dhaxdeeda inuu ku qaan gaaro waajib waxa ku noqonaya bisha inteedii kale inuu soomo inta uu dhiman wixii ka tagan inuu qaday waajib kuma ahan waa sida isku waafaqsan yihiin afarta madhabood oo ijmaac ahlul cilmina uu yahay waayo asii kamid ma aha dadka soonku lagu lahayay oo sooma la yiri waajib ku yahay hadii sadacda canuga inuu qaan gaaro maalin Ramadaan dhaxdeedo asoo wali afursan waxa laga rabaa inuu maalinta intii ka soo hadhayna oo waxba cunin qadana laga marabo sidaba Xanafi uu qaba iyo riwaayad Ahmed laga wariyay oo doortay Sheekh Islam Ibn Taymiyyah iyo culimo kaleba Maalikiyada iyo Shaafici waxay dhaheen iyo riwaayad kale Ahmed canuga yar maalin Ramadaan dhaxdeeda haduu qaan gaaro imsaak kuma waajibay bay dhaheen sababtoo ah maalinta gelinkeeda rasuulku kuma waajibin la dhihi ma marka imsaak baa kugu waajibay waana sida يعني مرات ugu xoog badan oo canuga yar hadii maalintii Ramadaan dhaxdeed uu qaan gaaro inta maalinta ka dhiman waa afaysanaysa la dhihi maayo qadana laga marabo shardiga saddexaadna wuxuu ahaa uu soonka lahaa al-aql garasho qofkan soomay inuu aqli leeyahay waana wuxuuna kamid shuruudda soonka uu ku waajibayo kuna asaxayo hadii qofku uusan aqli lahayn soonku ma waajibayo mana ka ansaxayo duu la yimaado waxaan inta tusin xadiiskii aan soo marno ahaa rufi'a al-qalamu an thalatha عن النائم حتى يستيقظ وعن السبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يعقل مع الشاهد كان ربنا وحو يahay وعن المجنون حتى يعقل qofka waalan ila wax ka garanaya asina soonku ma waajibay xadiiskan horeba aan soo marnay iyo dawlad qeyrka ayaa soo saaray imaam al-Albani xadiiska saxiix uu ka dhigay haday sadacdo qofkii waalna bishi Ramadaan dhaxdeeda inuu miirkiisa soo noqdo bishi intii ka dhiman soon baa la dhihi wixii ka tagayna qaday la dhihi maayo waa si isku raacsiin ahlu cilmiga weeyaan haday sadacdo qofkii waalna maalin Ramadaan dhaxdeeda inuu maskaxiisa ay soo noqoto maalinta inta dhiman afhaysay culimo qaar yiraahdeen waa si uu qaba madhab Xanafiya iyo riwaayad Ahmed la wariyay Sheekh Islam Ibn Taymiyyah uu doortay Maalikiyada Shaafi'iyada waxay yiraahdeen iyo riwaayad Ahmed la wariyay qofka majnuunka ah maalin Ramadaan dhaxdeeda maskaxdiisa soo noqoto maalinta inuu afhaysan waajib kuma aha inuu qadayn waajib kuma aha sababtoo maalinta gelinkooda inuu soom waajib kuma ahayn maadaama maalinta gelinkooda inuu soom oo waajib ku ahayn dadka inay soom laga doonay oo san kamid ahayn inuu soom waajib kuma ahan saasay yiraahdeen Shaafi'iyada iyo Maalikiyada saasana raajaxo qofku waalan hadii maskaxiisa ay soo noqoto maalin Ramadaan dhaxdeeda inuu afka haysan lama farayo oo wuxuu rabo cunaya inuu qadeeyo wixii ka tagana lama farahayo qofka hadii uu soo miirso maskaxiisa soo noqoto waa qofkii waalnaay wixii ka tagay inta uu waalnaa oo soona laga marabo habadnaad ama ha yaraado door bad ha noqdo dooraba ama maalmaha noqdo dooraba inta uu waalnaa soonkii ka tagay soo qaday la dhihi maayo واسي او قبل مذهب الشافعي حنابلة شيخ ابن مدر واساس ايو دورتي ابن حزم نساء ايو دورتي وانا سيده او دورتي ابن بازي ايو ابن عثيمين رحمه الله عليهم اجمعين sababtoo majnuunka kamid ma bay yiraahdeen dadka soonka uu ku waajibay marka inuu qadeen laga marabo maadaama uu soonku waajibin waxay culimadu ka hadlaan hadii qofka marna uu waalanaya marna uu soo miirsanay mar waa caadi maskaxdiisa marna waxa weeyaan waa isdhaxyaacaya qofka asaga ah maxaa laga rabaa bay yiraahdeen marka uu fiican yahay inuu soomo marka uu maskaxiisa ay kacsan tahayna soon laga marabo mana ka ansaxayo mana ku waajibi inuu qaday bay dhaheen waa si culimo badan ay qabaan weeyaan waxay ku culimada ka hadlaan yiraahdaan qofka maskaxdiisa dhaxyaacday oo mactuuha la yiraahdo ama aafa ku dhacday aqliga wax ka gaaray markaasuu hadalku uu sheegayo wuxuu sameeynayo maba kala yaqaanaba mar waxaad moodaa inuu si qof fiican marna wuxuu hadlayaa si qof waalan sidoo kale mar qaar wuxuu sameeynaya dadka fiican waxay sameeyaan mar qaar wuxuu sameeynaya waxaan maxsuura galbe ahayn qofka noocaas markuu noqdo soonkiisu muxuu noqonayaa marka culimadu waxay leeyihiin hadii qofkaas marna fiican marna yaani marad wax si ka yihiin haduu garanaya Allah subhanahu wa ta'ala soon in inuu ku waajibiyay oo na fahmaya waxa Allah subhanahu wa ta'ala adoominkiisa oo ka rabo oo kala garan kara xaq iyo baadilka qofka asaga waxa lagu tirnaa dadka aqliga leh inuu soomo ayaana waajib ku ah ama haduu aqligiisa inta ka dhiman yahay ee uusan kala garanaynin waxa laga rabo iyo waxa loo oomay midna uusan garanaynin ahlu cilmiga waxay ku ijmaacsiin qofka asaga ah in waxba laga rabin waa si uu tumay al-Imam Ibn Abd al-Barri marka qofka haduu maskaxdiisa ay isdhaxyaacsan tahay waxa la fiirinaa qofka inuu garanayo wax fiican inuusan kala garanaynin haduu wax garanayo oo xogaa uu toosan yahay dadka aqliga baa xukunkiisa la siinaya haduusan waxba garanaynin waxa leeyahay nabad Allah ku yeelo soon laga rabana ma jirto baa leeyahay wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam